subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinna waa subax sabti ah bisha May waa 12 sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan. barnaamijkan dhowr sano ayuu soo socday waxaa lagu aruurinayay dhaqaale loogu gado dhul looga dhiso Soomaalida ku nool Edmonton si ay u helaan center ay ayaga leeyihiin ay u madaxnaan yihiin oo center Soomaaliyeed ah. kaasi waxa uu ahaa Xasan Axmed Maxamed oo loo yaqaano Xasan Tukade oo ka mid ah guddi Soomaali ah oo gobolka Alberta ee dalka Canada ka wada qabanqaabada dhismaha xarun ay Soomaalidu leedahay. warbixin ayaanu idinka haynaa. waxa kale oo aad maqli doontaan cilmi baaris ay samaysay hay-ad la shaqaysa qaramada midoobay oo lagu ogaaday in qaxootigu ay fursado dhaqaale ka abuuraan wadamada ay martida u yihiin. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. iyadoo maalinta Isniinta lagu wado in la furo safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus ayaa waxaa guud ahaan bariga dhexe ka jira walaac laga qabo dabaaldegyo iska soo horjeeda oo lagu soo dhoweynayo iyo kuwo kale oo looga soo horjeeda tallaabadaasi. dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa xaflad ay ku marti qaadayso ku dhowaad 800 oo qof oo marti sharaf ah, kuwaasi oo harkocayaan gabdhaha u dhashay ama gabadha uu dhalay madaxweyne Trump ee Ivanka Trump iyo saygeeda Jared Kushner, iyada oo madaxweyne Trump xafladaasi uga qayb qaadan doono dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah, isagoo khudbad uu ku muujin doono sida ay uga go-an tahay inuu meel mariyo go-aankiisii uu gaadhay dabayaaqadii 2017 ee ahaa inuu safaaradda Qudus u rarayo magaalada safaaradda Mareykanka u rarayo magaalada Qudus. waxaa xusid mudan in shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv oo tiradoodu iminka ay tahay 850 ay 50 ka mid ah si ku meel gaar ah u tegi doonaan Qudus, kuwaasi oo hogaamin doono danjiraha Mareykanka David Friedman. wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa jimcihii shalay sheegay in dabargoynta barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay u baahan tahay hubsimo dheeraada. hadalkan ayaa micnihiisu yahay in cunaqabataynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii jiri doonto muddo dheeraada. wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in laalista cunaqabataynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay ku xirnaan doonto hadba tallaabada ay dowladda dalkaasi ku muujiso sida ay uga go-an tahay in ay faraha ka qaado arrimaha nukliyeerka. go-aankan ayaa ka soo baxay kulankii ugu horreeyey ee ay yeeshaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed, kuwaasi oo ku kulmay magaalada tan Washington maalintii shalay ee jimcihii ahayd. waxaana kulankan uu kusoo beegmayaa toddobaadyo ka hor kulanka taariikhiga ah ee la filayo inay ku kulmaan madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Soomaalida ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa in ka badan $1 milyan oo dollar ku iibsaday dhul weyn oo ay doonayaan in uu noqdo mid ay isugu yimaadaan Soomaalida halkaasi degan iyo agagaarkeeda, isla markaana ay uga shaqeeyaan horumarkooda. Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha VOA ee dalka Canada, ayaa warbixintan noo soo diray. dhulka ayaa la sheegay in laga dhisi doono waxyaabo kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan Soomaalida ku nool magaalada Edmonton. Xasan Axmed Maxamed Xasan Tukade oo ka mid ah guddiga wada hawsha dhulka ayaan ugu horreyn weydiiyey barnaamijkooda la xiriira dhulka ay iibsadeen. barnaamijkan aan wadno waa barnaamij waqti hore niyadda lagu hayay oo la rabay in looga baxo dhibaatada ka jirta gobolkan Alberta, khaasatan magaalada Edmonton. barnaamijkan dhowr sano ayuu soo socday waxaa lagu aruurinayay dhaqaale loogu gado oo dhul looga dhiso Soomaalida ku nool Edmonton ama agagaarka Edmonton si ay u helaan center ay ayaga leeyihiin ay u madaxnaan yihiin oo center Soomaaliyeed ah. dhulkaani waa 5 acre waaye, waxaa ku yaala dhismo weyn oo guri ah. waxaa laga bixiyey lacag adiga $1 milyan iyo bar ah. lacagtan Soomaali baa laga soo aruuriyey, Soomaali baa bixisay, Soomaaliya dhulkan gadatay. muhiimadda loo aruurinayo lacagtaas dhulkaas lagu gadanayo waxay aheeday bal meel aan u madax banaan nahay inaan helno.
xasan tukade waxa uu tilmaamay in xaruntu ay noqonayso mid soomaalidu ay u madax bannaan tahay islamarkaana meesha ka saaraysa inay dulsaar ku noqdaan xarumo kale. sidaad la socotaba soomaalida mar walbaba waxay dulsaar ku yihiin ummado kale oo naga soo horreeyey, ama ha ahaadaano kuwa muslimiinta oo carabta ah, ama ha ahaadaano organizationada caadiga oo main streamka ah sida YMCA oo kale iyo iskuulaadka iyo recreation centerka meelaha cityga ay leeyihiin oo leisharka la yidhaah. marka meel soomaali u gooni ah oo ayaga ay isticmaali karaan oo waktigay rabaan ay furanayaan oo ilmahooda loogu dhigaayo diinta islaamka recreation ahaan u isticmaalayaan, xaflada ay ku qabsan karaan, game ay ku ciyaari karaan, ayaga u madax banaan yihiin oo ayaga ay ka taliyaan ma jirin. sidaad hore ula socotaba waxaan isticmaalnaa fasiilatooyin kale oo dad kale aan la sheergarayno, dhibaatan badanna ka timaada oo markaasi ilmihii ay dhex galaan dad kale oo aanan ku diin ahayn, ku dhaqan ahayn, sidaasna ay dhibaato fara badan ay nooga timaado. sidaan arrintaas uga baxno waxaan doonaynaa in aan lahaano center soomaalida u gooni ah oo serviceskaas oo dhan dhalinyaradeyna, dumarkayna iyo carruurtayna iyo dadka da'da noqon doona waayeelka ay ka heli karaan facilitiga ay u baahan yihiin. wuxuu xusay ka sokow faa'iidada guud ee bulshada ay ka heli karto xarunta in haddana ay noqon doonto meel lagu wacyigeliyo dhalinyarada islamarkaana gacan weyn ka geysan karto wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. gobolkan aan ku loonahay Alberta, khaasatan magaalada Edmonton iyo agagaarkeedaba, dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ayaa dhibaato ku gaartay, naftooda ku waayey. waxaad dareemaysaa ciyaal halkan lagu dhalay oo Canadiana waalidkood ay kasoo carareen civil war in ay Canada haddana kala kulmaan dhibaatooyin noocaas ah. markii dadka ay iswareysteen oo community-yaasha iyo masaajidka iyo elderly iyo aqoon-yahanka oo dhan isu tageen, waxaa la yidhi arrintaani waxaa looga badbaadi karaa inaan helno meel noo khaas ah oo soomaalida markaasi ay kugu soo dhawaato. haddii center la sameeyo waxaa abuurmaya ganacsi. waxaa laga yaabaa masaajidka amba centerka agagaarkiisa oo dhan in laga furo business. marka waxaa laga yaabaa in xataa barnaamijkaasi oo next level intuu noqdo ou abuuro shaqo iyo ganacsi. meesha kaliya oo xiriir iyo wacyigelin iyo dhaqan celin lagu samey karo iyo dhinaca islamic aadaabta iyo akhlaaqda waa meel Soomaali ay leedahay, ay u dhan tahay, ay ku kulmi karaan elderligii oo advice siinaya amba wacyigelin amba tala siinaya dhalinyaradii yaryareed ee wadankan ku kortay. Zahra Maxamed Faray iyo Cabdiraxmaan Maxamed waxay ka mid yihiin Soomaalida degan magaalada Edmonton. waxay ka hadlayaan faa'iidada ay ka heli karaan dhulka ay Soomaalidu iibsatay. faa'iidadan ka heli karno aad u badan tahay. macnaha muxuu ahaa anaga masaajidyada hadda Edmonton ku yaalo aadan haddaan Soomaali nahay dadka funding gareeyo oo walaahi muxuu ahaa afka hore saaran maaragtay oo wax walbo looga baahdo oo macnaha wax walbo la uurinayo dadka walaahi number 1 aan nahay. haddana saas ay tahay waxa anaga leenahay wixii ma ahan markay end of the day wax yimaadaan muxuu ahaa waana la riixaa. ciyaalka youthka inay isku imaadaan oo meesha ma arkino ay macnaha ay isku arkaan oo qaarka macnaha meesha ay macnaha ay ku wada ciyaarayaan oo ku wada sheekaysanayaan oo wax ku kala faa'iidayaan oo maaragtay macnaha kii wax bartay oo wax uga faa'iidaya xagga waxbarashada xataa oo dhibaatooyinka wiilashaan la dildilaaya xataa maaragtay inay macnaha course garaynayso inaan annaga macnaha dad oo lost ah inaan nahay mafahant oo annaga meel aan program ciyaalkeena ku qaban karno inaan haysanin. sidaa la socoto waxaan nahay ummad muslima u baahan ilmahooda inay u bartaan diinta islaamka iyo aqoonta kale oo dunyawiga ah labadaba. marka waxaan isleeyahay maadaama awood lacageed aynan jirin, mashruucan oo hadda maxaan ku yidhahdaa carbawday oo hadda ka socda magaalada haddii uu hirgalo wuxuu awood u yeelanaa in Soomaalidaas dhan ay ka helaan waxbarashada oo loo sameeyo Islamic school. dabcan maadaama meesha ay tahay meel Soomaali ay iska leedahay, kolley waxaan u malaynaa inay mashaariicda ay fulin doonaan ay ka mid noqon doonta in luqadda af Soomaaliga meesha lagu baro. sidoo kale barnaamijyo kaloo tarfiihi ah ama maxaan ku yidhahdaa meelo entertainment ah inay helaan, meelo ay ku ciyaaraan basketballka, soccerka, jiimka iyo waxyaabaha noocaasa. marka waxaan isleeyahay waa mashruuc aad iyo aada muhiim u ah
hadduu hirgalana soomaalida wax weyn ka qabana. xuseen nuur xaaji, v o a, Toronto. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka mareykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen urur ay leeyihiin dhalinyarada soomaaliyeed ee xirfadlayaasha ah oo lagu magacaabo isutega soomaalida mareykanka ee ganacsiga iyo xirfadlayaasha, kaasoo ay ku bahoobeen dhalinyarada soomaaliyeed ee kasoo baxay jaamacadaha kala duwan ee wadanka mareykanka iyo weliba dalka canada. wariyaha v o eda minnesota maxamuud mascade ayaa haddaba la kulmay hibaad xuseen shariif oo ah guddoomiyaha ururkaasi iyo hinde maxamed cabdi oo ka mid ah guddiga maamulka ururkaasi. haddii aan adiga kuga hormaro hibaad, anigu u imaan doona ururkiinan iyo waxa loo aasaasay iyo waxyaabaha aad doonaysaan aan ka bilaawno marka hore. kulanka caawa halkan aad iskugu timaadeen oo dhallinyaro fara badan oo dadka waxbartay oo soomaaliyeed ay halkan iskugu yimaadeen, ujeeddada kulankan iyo waxyaaba ad ka hadlayseen maxay ahayd? ujeedada kulankani wuxuu ahaa inaan dadka u soo kordhino caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jirka. ramadaan baa soo socda, so waxaan rabnay dadka oo soomaaliyeed oo ku takhasusay maadooyinka caafimaadka, public health iyo caafimaadka jirka inay wax noogu kordhiyaan aqoonsigooda. waa garta hinda, marka la leeyahay waxaad doonaysaa inaad bulshada usoo bandhigtaan arrimaha caafimaadka, dabcan waxaa soo dhowaanaysa bishii ramadaan sida ay hibaaqba xustay. marka waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaca dhimirka. ma waxaad arkayseen soomaalida gobolka inuu dhibaato ay ka haysato xanuunada maskaxda ku dhaco kale ama dadka isla hadlayo kale bulshada kusoo badanay? ma sidaas baad u doorateen? wallaahi horta dad anaga bas nama hayso, ummadda dhan bay haysaa, khaasatan anaga dadkeena way haysataa. waxaan rabnay inaan kala hadalno, dad badan baa jiro inay waxyaalahan ka wada hadlin. maanta fursaddeena waxay ahayd inay public isku imaadaan, wax ka faa'iideynaan. dadka hadda maanta noo khudbeynaya waa dad oo fiilkaas ku jiro oo ayaga maxay taa professionkooda yahay. marka ayagaa rabnay inay shacabka la sheergarayaan waxaan ay soo barteen iyo anagana ka faa'iidno. dadkaan u casuumnay dadka professionalka bas maaha, communitygana waan ka casuumnay, so qof kasta meesha wuu noo joogaa maanta. waa garta hibaad, badanaa waxaa gobolkan aad looga hadlaa in uu jiro waxa la yidhaahdo kala fogaansho inuu u dhaxeeyo dadka waxbarta ee soomaalida ah iyo dadkii caadiga ah ee soomaaliyeed iyagoo waaweyn waddankan soo galay oo dhallinyaradii waxbaratay ay noloshii maraykanka la qabsadeen. isfahamdarana dhinacaasay ka jirto. adinku marka ka ururkiina ahaan qorshaha ma idinku jirtaa ka sokow inaad adinku samaysataan urur aad leedihiin, inaad noqotaan buundadii isku xiri lahayd dadkoodii iyo weliba aqoontii adinku aad barateen? sababta ururkan loo aas-aasay waa waxaad iminka sheegtay. waxaa jirta dad badan oo soomaaliya wax badan ku takhasusay, annagoo dhan isma naqaano. dad dhakhtariin baa jooga, looyaro, dad caafimaadka maskaxda, wax badan maadooyin badan bartay. horta waxaan rabay annagu intaan isku nimaadno, isbaranno, marka dambena communitygan usoo jeedino wax noloshooda caawisa. so sababtaasaan iskugu soo ururnayba. marka hinda, waxa aad higsanaysaan oo aad doonaysaan inaad ku tallaabsataan mustaqbalka oo aad rabtaan inaad ka midho dhalisaan maxay? horta waxa jirta waxaa waaye dadka oo magaaladan degan way kala fofog yihiin. dadkii professionalka hal dhinac bay u duwan yihiin, dadkii kale oo professionalka ahayn dhinac kale u duwan yihiin. anaga waxaan doonaynaa dadka inaan isku wada keenno. programkan iyo networkan waxaa loo furay, platformkan waxaa loo furay si uu qof kasta ka faa'iidaysto, dadkii isku keenno, walaa qof waxbartay qof waxbaranin, kulligood waxaan rabnaa inaan isku keenno ay kala faa'iidaystaan. dadkii way kala dhumeen, marka ma lasa arko event in la aadama ogiye. anaga waxayna event maaha, waxayna waxaa waaye wax laga faa'iidaya dadka inaan usoo bandhigno. ugu dambayntii hibaad, haddii aan adigu ku weydiiyo, dadka soomaaliyeed ururkiinan ku jira ma gobolkan minnesota oo keliya ah ayay joogaan mise gobollo kalena waa ay ka tirsan yihiin? sidee u shaqaysaan xiriirkiina marka laga hadlayo? xiriirkeenna iminka waxaa ku jira 10,000 oo qof. minnesota unkuma ekin, waxaan ku egnahay maraykanka oo dhan. maraykankaas goboladan ku egnahay waxaa weeyaan Seattle, Toronto oo Canada ah, Ohio iyo annaga. inaan guddiyaal kala furnaan rabnaa oo maraykanka meel kastay soomaali degto. also waxaan joognaa Australia, guddigeen wuxuu ka biloobmay Australia, dan waxaan tagnay UAE, iminkana Great Britain, UK-gana waa laga furay. so waxaan rabnaa soomaalida adduunka jooga oo dhan inaan isku xidhnaano sidaan wax ugu tarno waddankeena iyo dadkeena meel kastay joogaan.
hinda maxamed cabdi iyo weliba hibaad xuseen shariif oo ka mid a dadka soomaaliyeed ee ku nool wadanka canada iyo weliba mareykanka ee xirfadlayaasha oo u warameeyey wariyaha v o eda magaalada minneabolis maxamuud mascade halkaad kala socoteenna waa v o a. aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirban. dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 425-585-1503 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. cilmi baaris ay samaysay hay-ad la shaqaysa qaramada midoobay ayaa lagu eegayey in dadka qaxootiga ah ay culaysa ku hayaan dalalka ay u qaxaan iyo inay qaxootigu abuuri karaan kobaca dhaqaalaha dalalka ay u qaxaan. daraasadan ayaa lagu ogaaday in qaxootigu ay fursado dhaqaale ka abuuraan wadamada ay martida u yihiin. hay-adda ayaa booqatay xerada kaakuma ee dalka kenya oo ka mid a xeryaha ugu da-da weyn qaaradda afrika. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha v o eda daniel sharaf oo booqday xeradaasi waxaana soo koobaya xuseen barre. qaxootiga ku nool xerada kaakuma waxa ay leeyihiin in ka badan 2,000 oo dukaan oo yaryar. qaarkood waxay bixiyaan cashuur inkasta oo aanay wax adeega ka helin dowladda. mesfen getahon waxa uu ka soo qaxay etoobiya waxaana uu ka warramayaa sida uu noloshiisa u dabaro. waxaan imid aniga oo aan waxba haysan. waxaan bilaabay ganacsigayga anigoo aan waxba gacanta ku hayn. waxaan raadiyey shaqo dad kale ayaan u shaqeeyey laakiin maanta halkan ayaan soo gaadhay. hay-adda i f c ayaa sheegtay in kaakumu fursado ganacsi ka jiraan iyadoo ugu baaqday shirkadaha gaarka ah inay maal gashadaan sida uu faahfaahinayo michael bodzang oo ka tirsan hay-adda i f c. waxaa jira ganacsi gaar loo leeyahay oo lacag sameeya. shirkadaha gaarka ah waxay abuurayaan shaqo ay helayaan qaxootiga iyo muwaadiniinta iyo weliba adeegyo fiican waxaanay kobcinayaan dhaqaalaha maxalliga ah. xeradan kaakuma ayaa furnayd 26 sano waxayna ku agtaalaa magaalada weyn ee kaakuma. guud ahaan degmada waxaa soo gasha lacag gaadhaysa $56 milyan sanadkii iyada oo magaalada iyo xerada marka la isku daro ay noqonayaan magaalada tobnaad ee ugu dadka badan dalka kenya. benjamin ekal ekwam waxa uu leeyahay maktabad bugaagta iibisa oo ku taala bartamaha magaalada kaakuma. 70% waxaa dakhliga uu naga soo galaa xerada iyo hay-adaha ka shaqeeya oo wax naga iibsada. qaxootiga ku jira xerada kaakuma waxay laba jirmaameen 5 sano ee lasoo dhaafay iyadoo ay soo kordheen qaxootiga ka imanaya suudaanta koonfureed. xerada waxaa ku nool qaxooti ka yimid 15 dal iyagoo abuuray fursado dhaqaale sida uu faahfaahinayo sukuru janis oglo oo ah madaxa xafiiska hay-adda UNHCR ee kaakuma. waxaa jiray su'aalo badan oo la iska weydiinayay in qaxootigu ay ku tiirsan yihiin oo keliya mucaawimada ay ka helaan hay-adaha samafalka laakiin warbixinta hay-adda i f c waxay si toosa u muujinaysaa in dhaqaaluhu uu yahay mid aan ku koobnayn hay-adaha samafalka ee uu dhaafsiisan yahay. xasan maxamed aadan oo ka qaxay soomaaliya ayaa helay fursad aad u wanaagsan isagoo qaar ka mida qaraabadiisu ay u soo direen lacag dayn ah si uu ganacsi u bilowdo. laakiin sharciyada dalka kenya ayaa ah kuwa hor istaagaya dadka qaxootiga ah inay sharci ganacsi helaan ama ay si xor ah ugu kala gooshaan gudaha dalka iyaga oo ay waajib ku tahay inay shuraakala noqdaan dadka u dhashay kenya. waxaanu u baahannahay waraaqahaasi. waxa kale oo aan u baahannahay taageero si aan lacag u helno. inkastoo aanay u muuqan in dowladda kenya ay wax ka bedelayso sharciyada xayiraya dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga qaxootiga laakiin haddana hay-adda UNHCR ee qaxootiga qaramada midoobe u qaabilsan ayaa lagu wadaa inay raashinka ay bixiso ku bedeli doonto lacag kaash ah oo la siiyo dadka qaxootiga ah. tallaabadaasi oo ay hay-adda i f c ay ku tilmaantay mid soo jiidan doonta shirkadaha maalgashiga.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi wariyaha v o eda daniel sharaf noo soo diray kadib markii uu booqday xerada qaxootiga ee kaakuma ee ku taala dalka kenya. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com. bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a. waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarafoonka, cawayska washington, dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha. haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha. v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dadweynaha dalka ciraaq ayaa maanta oo sabtiga u dareeraya goobaha codbixinta doorashada baarlamaanka dalkaasi si ay u doortaan baarlamaan cusub. doorashadan ayaa ah tii u horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay ciidamadu dalka ka saareen kooxda isis amaba daacish. warbixintan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o da bariga dhexe xuseen saxnuuni. doorashada baarlamaaniga ee dalka ciraaqa waxaa ku tartamaya in ka badan 7,000 oo musharaxa oo ka socda in ka badan 300 oo xisbi oo doonaya sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka cusub ee dalkaasi. xarunta warbaahinta nabadgelyada ee dalka ciraaqa ayaa ugu baaqday dadweynaha iyo musharixiinta inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee waddankaasi. warmurtiyeed ka soo baxay xaruntaasi ayaa lagu sheegay in wax kama jiraan ay yihiin wararka sheegaya in aan la isku halayn karin nabadgelyada goobaha codbixinta. ciidamada amniga waxay diyaar u yihiin inay sugaan nabadgelyada dadka iyo goobaha codbixinta inta ay socdaan howlaha doorashooyinka ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarunta warbaahinta nabadgelyada dalkaasi ciraaqa. arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalaya safaaradda dowladda maraykanka ee magaalada baqhdaad ay ka digtay suurtagalnimada in weerar argagixiso lala eegto meelo ka mid ah goobaha codbixinta ee doorashada maanta dhacaysa. warkan oo lagu baahiyey barta safaaradda maraykanka ee dalka ciraaqa ay ku leedahay internetka ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay heshay macluumaad sheegaya weerar lala eeganayo goobaha codbixinta gaar ahaan xaafadda alkhazaaliya ee galbeedka magaalada baqhdaad. ciraaq waa dal dadkiisa ay haysaan diimo kala duwan islamarkaasina ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan oo ku hadla luqado kala jaad ah iyo weliba kooxo siyaasiyiin ah oo si weyn u kala qaybsan. dadka codkooda dhiibanaya ayaa kala dooranaya 7,000 oo musharaxa oo u taagan kuraasta baarlamaanka dalkaasi, taasoo xeeldheerayaasha ay rumaysan yihiin inay culays badan ay ku abuuri karto ra-iisul wasaaraha haatan xukuma dalkaasi ee xaydar al-cabaadi. haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey siduu u arko doorashada baarlamaanka ciraaqa ee maanta ka dhacaysa dalkaasi. doorashada baarlamaanka dalka ciraaq oo maanta sabti ka furmayso waa mid si weyn looga dareemayo guud ahaan dalkaasi, sababtoo ah waxaa aada loo adkeeyey ammaanka goobaha codbixinta, waxaana magaalada baqhdaad iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi lagu arkaya ciidamada booliska oo aada u sugaya fagaarayaasha iyo meelaha codbixintu ay ka dhacayso maanta. sidoo kale codbixinta doorashada baarlamaanka ciraaq ee maanta ka dhacayso waa mid aada xasaasi u ah oo caalamka oo dhan shakooda hayaan, sababtoo ah waxaa jira dareen ay qabaan dadka ciraaq iyo beesha caalamka oo suurtagalnimada inay dhacaan weeraro argagixiso. waxaa kaloo la dhihi karaa waa doorasho xiiso badan oo ay ku tartamayaan ilaa iyo 7,000 oo musharaxiin ah, kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan ama ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dalkaasi yeelo doono oo tiradoodu ay tahay 328 xubnood, ayagoo kale ah axzaab kala duwan oo ku salaysan qowmiyado sida carab iyo kurdis ama diimo oo muslim iyo shiico oo dhinac ah iyo masiixiyiin dalkaasi ciraaq wada degan. doorashada baarlamaanka dalka ciraaqa ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii maleeshiyada ururka isis looga adkaaday guud ahaan dalkaasi sanadkii hore. mana jirto saadaal sheegaysa xisbiga la filayo inuu helo
aqlabiyadda xubnaha baarlamaanka cusub ee dalkaasi. in ka badan 3 milyan oo reer Ciraaq ah ayaa ku barakacay halka kumanaan kale ay ku dhinteen dagaalada u dhaxeeyay maleeshiyada Daesh iyo ciidamada dowladda Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira. aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA bariga dhexe Xuseen Cismaan Saxnuun ayuu ahaa wararkii u dambeeyey ee doorashada maanta ka dhacaysa dalka Ciraaq in la socodsiinayay. halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay subax sabtiyo oo wanaagsan. haatanna waxaad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanka Xuseen Miiraale iyo heesta uu ku luuqeeyo ee Ladan. codka fanaan Xuseen Miiraale iyo heesiisa Ladan ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta Soomaaliga ee VOA. tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan. love it, I'm a kaga wali. I lick your love, tell you what,